الرحيم maanta waxa aanu hadalkayaga ugu baxnay aniga iyo Saciid warar badan oo ka dhashay maalin hore oo aanu la kulannay saxaafadda aanu ka sii deynay kulankii aanu la yeelanay wasaaradda arrimaha dibadda Ingiriiska iyo deeq-bixiyayaasha waxa kale oo ka hadlay gudoomiyaha madasha oo aanu ka tirsanay oo cadeeyay annagu ka hadalnay ku laaban maayo wixii aanu isnidhi annagu waxaanu nahay marka hore dad Somaliland dalka Somaliland kuwa boobay annaga ayaa uga xajala badan qabiil cidii naga dhaxarkaysa wayeelkadeeda annagu waxaanu ku hadalnay koox gaanga oo si ahmaqnimo ah xoolaha ummadda boobkooda ugu mamay foreign-kan uu sheegay local-kan waa soo bandhigeynaa has fariistaan ha cadeeyaan tuugmaniin ha yiraahdaan ha istifaacan maxay la qeylinayaan ma laga harayo dawladda imika xilligeedu hadduu ka dhamaadana ma laga harayo waa koox cadeysatay oo odayaal iyo inamo caado ka dhigtay inay dalka ummadda hantida waxooda boobaan oo qaskaridaan oo intay dawladda baasaboorada Ingiriiska yimaadaan halkan ku yimaadaan caruurtooda iskuulka ku dhigato ma u suuroobayso mana laga harayo wala sheegaya shil walba halka dhigtay wala ognay on details taawalada gashay tay guriga ku iibsadeen taakoonada ku jirta dalka ka dhexdiisa company laga samaystay lacagtii ummadda public loo soo bandhigaya very soon ma la soo dhigaynaa ha soo fadhiistaan tuugmaniin ha yiraahdaan maxay sida maatada la cabaadayaan aqliga waxa loo lacag ku dhaceen miyay isku difaaci kareen maxay la qeylinayaan waxaan kaloo maqmaqlay dumar baa wax la yiri xaraam anagu dumar ma ayno mana caay karo dhaqanka Soomaaliga kuma jirto haweenka siyaasadda galay xil aan dastuur baahay dusha iska saaray awoodihii dalka ugu fara badnaa ugu waaweynaa haysta yaa wax la oranin cidna ma looga dambaynayo waxay qaateen baanu sheegaynaa waxay qaldeen baanu ka hadlaynaa halkii wax dhigteen baanu dabagelaynaa on details baanu u sheegaynaa heesaha kacaanka iyo qudbadaha ka baxa TV-ga Axmed Silaayo ummadda waxoodii la dhacayo qabsoorraf la qolmaysa iyo qado abdiidan baa xudi gabiilay wax ku jiray qoys 15 oo masruuf qarashkii loo waayay qodbad ministeriyo loo karo kuba qadeeyaane qasanta yaa Allah ayaa wada qiimo bixin doona buuri waa ayaan dalka ku habsatay 3 sano ka bacdi inay taagnaato maanta waxaan doonayaa ka hadlo doorashadii dalku halka ay ku dambeysay iyo image-ka ay leedahay maanta marxalado badan bay soo martay dawladda maanta jirta wax walba way ku taraagaraysay inaan doorasho dhicin qasbi baarlamaanka looga beelaha la xumeynaya looga dadkii la leeynaya looga si aan doorasho u dhicin biseelka dadweynaha laga soo gudbay marmarsiye markii la waayay waxa lagu heshiiyay gudoomiyaha guurtooda inuu ka bareero ilaa wax lagu marmarsadaa ma jirtee oo wutino riisal oo yiraahdo doorashadii anaa joojiyay shir aan afka baarkiisa baa labada xisbiya macaarid iyo dawladda wada galeen anu xisbiga kala xisbi awal xisbi loo ma aqaan labada xisbi macaarid iyo dawladda wada galay ilaa imika meel ku dambeeyay lama yaqaan waxa la xasuustay habeenkii dhaweeyay ay laba saddex gudoomiye xisbi doodayeen ayuu gudoomiyaha xisbiga kulmiye ku yiri labadii gudoomiye ka bariya gudoomiyaha guurtida in doorashada uu inoo ogolaado jahiliyadii ugu weyneed aan maqlo weeyay waxa la ogolaada waxa la diida waa sharciga ma ha qof masiirka ummadana maanta wuxuu marayaa hebel inoo bariya image-ka doorashadu waa ka wala bareeray dalka madaxda ka talisaana waa nin kale wutino riisa ma doorashadii ku joojiyay inta sharcigii laabay iyo nin kale bariya iyo nin shari khayrtooda ku hadlayno muudba kaga jira waxa dalka ka dhacaya saddexdan baa dalka xukuma shacbiga uu bareeraya waxa uu ku bareeraya shacbiga Soomaaliland ka mid ka hay oo aan jeclay oo hubo inay leeyihiin karti ay kaga baxaan duruufaha adiga ku soo wajaha waa laga bareeraya shir qaran baa la qabsanaya hadii doorashadii markii sababii soo dhamaadeen la yiri diid wala isku heshiiska yar habartan dheelay fahmaysadii si leeyahay ma oga shacbigu uu ka bareeraya shir qaran ayuu qabsanaya waxaan ku soo koobayaa dawladda dhufaanka ah ee cabban ee waxba qaadi kareen maanta dalka ka talisa abdiidan baa wuxuu yiri 61 ragga dacalka buuxsaday hadhimo doolarada miidhan
كليان ضروري وكوكين دريتش يلكيدي هذا اللي دول مجموعة سيدها اللي قدايو مدارتي حج كان قبي حق يضع عدا المريض دي منها يجي لا نكيد ده بيلكي هذا القبض المايو عيد مش عيد ما نروح عليها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أرتانو كل بس إذا معيدين ما بدن كارين تنتابتي وعن كل اللي يونا ينتي لو يتوه حد عي يقين هذا قين سيد دولته يرجع أي دولة نمكن وحكش يجني إن يتبقى السوق جريان قبيل أنكم مرة بقبيل كمان وحدلين مرة قبيل وما نتشيدين تدكن هو أوجي أنكم وحنو كهذا اللي مع الدولة دولن كمان وهذا وحنو كهذا اللي إنمو باسبور إنجليزي هايسته وودن كبوبي أيانو كهذا اللي مركنو إنما كهذا اللي واحد شرين كباشع واللي يراو كلو ولي سومان وهذا القادم هذا اللي أنكم أنكم ما أنتي لو توح السوق اللي واحد هو مركي سفير كله دورتي أنكم نرى كرسو هايلين أمة لما هذا الله لما أنا حدلين قبيل لما أنا حدلين إن نعدكم حمينو nimankii idin soo dhacay bay ragga qaar qabiilku waxa internetka ku jira waa arkaysanaya aflagaadooyinka aad faraaxume foosha xume socda annaku marraba waxa kumaanu jirin annaku nimanka wadanka wax ka dhacay waanu ku daba jiray nimankana is cadeeyay nire maanu oranin hoos kala qabiil oo kulba websaari yar oo dadka laga caayo waxaan xasuustaa ayaantii ninka mujaahidka weyn ee ina gabooba joornaalkiisii laga xiray ina وبسريدي عايي كي عايدة أكتو كنت خصوصي إذا عايي ننكا ويدا مشاهدين وننكا ما أنت جورنال كيس حرية رجع عايدة كنت خصوصينا جورنال دو الفرنيين وعن مهمة تاعي أنكو كما هرينا رجع إم كلام يلبانو كلمة وراقاي دوكيومنتيشن بانو صوبان لقينا ننكا كود دفاعي رمضان تاس ننكا كود دفاعي ننكا ودن كالصوحة دي ننكا رير ما كود رجع يري أنت مقعودين بوارك هو اسكو هذا الرير waxaanu leenahay annaku intaasoo qofoo ingiriis baashaboor ingiriisa haysta baawarka dalkana haysta baanu magacownay hadday intii isku reer noqotay dee idinkaaba caddeeyey hadday isku reer noqotay annaku shakhsiyaadkaanu sheegnay bal baawarkay waddanka ku leeyihin waa la ogaya dhaqaalahay waddanka ka dhaceen muhiimadda ugu weynna waxa weeyaan waxaan lagu marmarsoonayo maanu teginayo waxaa iska dhaafa website international kay weyn oo qoray maanta waxa noqotay website-yada international kay wakiilka soo kale inuu odayaal soo fariisay imika salaadiintii soo fariisay inaan been buu sheegay baa dhiman siyaasadda aad taqaanaa dawladda taqaanaa wax way hebel u jawaab inay maanta international community waxa cad ee la soo qoray inay anigu waxaan qabaa wax allaala waxaanu ka hadlaynay waa waxba ninka Somalilanderka waxba adigoo reer isku dabada gelinin waxaan idin sheegayaa horta dacwadahan waxa bilaabay dawladda kulmiye documentation baanu haynaa badan aan waliba dadka iyo dalkaba kala xishoonayno inaanu sii deyno haddii aflagaadooyinka la joojiyo waan soo deyn doonaa hadday leeyihiin ma qabno dawladda kulmiye iyadaa bilowday dacwadda ay waddanka dacweyso annaku mar qura waddanka interviewga iyagii horena waa daawan kartaa mar qura waddanka maanu dacweynin shakhsiyaad ingiriis aanu dacweynay dawladda kulmiye ilaa koor ilaa Axmed Maxamed Siilaaye waxaanu hayna waraaqii dawladdu ugu horeysay Soomaaliland ka qoray marka ciidanku raashin u baahdo Ibrahim Dheere ka hor istaagay markuu ina Xaaji Ibraahim Cigaal referendum ka sameeyay haftadii Soomaaliland lagu goostay waxyaabo ka yiri qoraaladu ka yiri lahaa waxba kama jiraan baacad dawladda riyaale intaas shaqo halkan ka taala waa la ogyahay waxa ogtiin ninkii Mareykanka ahaa markuu Ameerika tagay ninkii Mareykanka midowaa la kulmay Donald Payne waxyaabo kula hadlaynay ahayd aniga Soomaali weyn su keenaye meesha igala tuur riyaale waraaquu dawladda riyaale ka qoray corruptionka annaku heerka marra iyo karaahiyada maanu gaarsiinay nimanka oo haystee qaylinaya la Somaliland baa ishtakeeyeen dacwadii hore Somaliland ka yaalay ordo soo eega annaku shakhsiyaadkaana ka harimayno ninka waddanka inta kursiga waxa iyo lacagta ka soo dhaca meel uu reernimo dabada yaanu gelinin ninka waddaniyad iyo Ilaahay yaqaana ha arko imika wixii wax ka weyn baa yaalo khiyaamo qaran baa taala anigu dadka Soomaaliland waxaan ku leeyahay haddii wax kasta oo yimi la beenayay maanta khiyaamo qaran baa taala waxa u sameynayaan dadka isugu dirayaan reeraha u hoos galayaan waxa weeyaan dalkan mashaakil ka dhaco waa kuwa maanta la soo saaray website-yo weyn oo international inay iibiyeen anigu waxaan qabaa in imika aynu ku dhawaaqno shir qaran oo weyn oo la isugu yimaado
madaxweynuhu inuu dadka soo hor fariisto u warramay ahayd haddaanu u warrami karaynin halgankii dhammaa waxyaaba mucjisada markaad u fiirsatid wax allaalo waxaynu u soo halganay waxaynu soo maray maanta waxaynu masiirkeenu halku yaallo waa aragtaan nin yiraaha anigu waan iska dhoofayaa oo dawladda ma dhacayso adiga 2 sanadood iyo bari kordhiyay London isaga soo dhoofa odayaan hadlaynba iyo ninka la dadka halay masruuc sheegay ordo Senegal soo barya anaku waxaanu qabnaa dacwadaas harimayso ninka yiri Ingiriisku nagama daba imanayana uu iska hadlay way og yihiin oo digniinay haystaan digni wadankana cuna qabateen la saar maayo idinka la saaraya insha Allah waxaanu ku ballan qaadaynaa inamadaas soo guryahooda laga soo guray oo wax allaala waxay xadeen account kasta aanu ka daba tagnay in la arko kuwa maanta nagu caayay qabiil baa ku haysataa nimankaas oo markanu malaayiin dollar ka soo guryaha iibsadeen maalintaana aad nala hadal wadankuna waxaan leeyahay Soomaaliland tala degdeg ay u baahan tahay anagu waan wadayna talabaad arrintan wadnaan ayaanta la wata muhiimadda ugu weyn dadku waxay moodayeen niman iska tagay wasaaradda arrimaha dibadda Ingiriiska maalin qorays kaga soo dhacday arrintan 7 bilood bay socotay 7 bilood waxaan u tagnay Belgium Ingiriiska inta soo jeer baanu ku noqnoqonay inaan ballantaa ka helo guddi bay leedahay gudoomiyay leedahay oo ragii guddiga kamid ka waa kuwa halkan jooga ragii kalena insha Allah iid markayna rabadaan markayna dhaaftay 100 nin soo hor fariisan doonaan guddida kamid ah midda kale arrintan marka Oaklands wasiirka arrimaha dibadda hore Soomaaliland wuu ka hadlay wuxuu cadeeyo qirtay inay arrintu jirto oo way isku riix tuurtuureen isaga hersi waa ka yiri waxaanu ku erinay ninkaasi waxay ahayd arrintaas oo saxiixay anigu Soomaaliland ha toosan leeyahay ha noolaato tala degdeg baanu ka dalbanaa dabadiyo gudayna la isugu yimaado bismillaahir rahmaanir rahiim sida ay Saciid iyo Muxidiin u sheegeen horta anigu hadalkii ka wada dhameeyay laba arrin baan ku darsanayaa labada arrin mid waxa weeye waxay qosaysaa shacabka Soomaaliland iyo midnimadooda midna waxa weeye arrinkan nimanka hantida boobay laga daba tagayo ta arrinka Soomaaliland iyo shacabkooda qosaysa waxa weeye inaan loo xidhin muraayado qabyaaladeed sanadkoo dhan markay ay dhiin meegu timaadana loo xidhin muraayadihii Soomaaliland iska saara muraayadaha qabyaaladda tuug kasta meeshiisa laga daba tagayaa walow kaana aabahay haduu ahaa waan soo qaban lahaa waxaan ku cidna qabiil horta yaan lagu taageerin waana la soo qabanayaa shacabkana waxa rabnaa inaan tuuga ku aan isku qabanno keena xun iyo keena samba waxaan labaad sheegayaa arrinkan WikiLeaks waa arrin aad waxa Soomaaliland ka jiraba ka weyn maanta qarannimadii Soomaaliland baa la iibiyay intaasoo nin baa soo dhintay intaasoo qof baa soo dhintay wax aan la aqbali karin weeyaan mid kastaaba waxayd inuu ka dhaliilo arrinka waana nasiib darro in iyadoo qabiil la taageerayo arrinka Soomaaliland ee ka shifmay in lagu difaaco qabiil ama qabyaalad oo la yiraahdo waxaan ma dhicin waxa waayo certain individuals baa sameeyay oo magarasa asku qabiiltiin markii la dhimanayay qabiil iyo waxa lagu ma dagaalamayn qarannimo loo dhimanayay maantana tiiba dadka laga rabaa inay gacmaas qabsadaan anigu waxaan hay xildhibaan ka saraxan xisbiga wadani bari toole hadii uu Cabdiraxmaan Ciro xukuumadiisu sameeyso waa la soo jeebanaya laftigooda silsilad baan ku soo xidhaynaa ma maqlaysaa iminkana saas sileg nimankan soo jeebanaya silsilad baa lagu soo xidhayaa ciddu doonaha noqdo kuwa Hargeysa jooga iyo kuwa dabadda joogaba xeer baa jira shuruuc baa dalka ka jirta caalamka guriyii waad ogtiin ilma Qadaafi waxay soo xadeen oo dhan imika way xidhan yihiin qofla saaran ballan baan uga qaadnay qofla kuna lagu jabinayo ama toos ha soo shubtaan oo toos waxdaan ama isku rogachaya $2,000 cergaabaha ugu raraan Hargeysa way garanayaan nimanka aan ka hadlaya haddii aad isku rogachaya masalaanta aad ka qaadid wadada cergaabo u rartid iyadoo jaygu cergaabo yaalo aad 2,000 jeebka dambe aad nin ugu shubatid hadhow kugu shubo waa tuugnimadii والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.